قصة waxay ahayd true history oo gabar uu siiyey haye hooyaan u sheegay waxaan iri hooyaday Mareykan ay ku nooshahay bilmunaasaba Minnesota waa salaamayna hooyaday qaaliga I wish inay clipkan daawanayso waan u diri doonaa waxaan ku iri hooyo sheekha gabar i siiyey Shacab Rashiid markaas waxay tiri hooyo diinta islaamka soo ma qabto alxaq liman sabaq qofka yani ka soo horeeyay soo awlawiyada ma laha ha soo hooyada aabaha xaq ma laha rasuulka soo ma dhihin ummuka thumma ummuka thumma ummuk ha ani gabar baan ku doonay aan bixiyay maxaan ku iraahdaa sooriyadeeda dahab aan u gaday wax walbo kaliya adiga ina baxdid Dubai si martid Kenya aadid ilaa ay halkaas Mandheera aad gabadha soo guursatid waa rabaa wadigayna warbaahin kama sheegin it's my first time maadaama aad weydiisay dhalinyaro badanna inay ka tusaale qaataan ana always dadku waxay yiraahdaan Absalaam waa tusaalaha nool maadaama guur ka hadlayno waayahay baan iri anigoo oo runtii bimacnaa jaceelkan ka hadlayna soo ma su'aashaadi bay ku khusaysaa jawaabtan anigoo ilmeynayo runtii weligaa jacayl ma la ilmaystay baan teleefonkii dhigay waagaas mobile ma jirin khadratuuni xaafad la dhahaan deganaa waxaan isla deganeen walaalkeen Sheekh Kenyawi teleefonkii markii aan dhigay runtii waa ilmeeyay wiil dhalinyaraan ahaa yani even markaasaan qaangaaray yaraantii baan mas'uuliyad ku qaaday وان اسكسو بحي مسجد التوفيق ليرادان إمادي لبركعان تكذي إله بان بريه إله وحن يري الشيخ عبد الرشيد قبر بويسي وانو كمها السيها جعلوا يقبوا يسودوي السجا يدريدي سئلاء أبك أب وكان أبوهما صالحا هو يدينا مركي آنو شيء وحي تري هو يهيه أنيو قبر بان كودوني maxaan sameeyaa waan baxay muhandisiin xaafad la yiraahdo oo qaahiro ku taalo oo sheekha quraanka ku duubi jiray waagaas waliba wuxuu duubayay riwaayadan la yiraahdo khalaf an hamza duubayay baan u tagay arintii uu sheegay marka anoo ilmeynayo buu arkay bimaana wali cudur daaraya daawadayaasha waxaan u maleynayaa waay izid jacayl dartii ma loo ilmeeyaa وانا جوابتان او imaanaya qissa waaqiciya oo dhacday way widawanti anaga dad qaar siday rabaan inaan wax u falanqeynaa marka aniga waxaan ka hadlayaa that is my life kayga inta badan ka hadla way aragnimadeedii khibrada qisadana qissa shaahidkeedii dadkii goob joogayaasha sheekhina waa jooga ilaahay khayraasi maalin hore buu yani namarti qaaday safiirka qadar oo casho u sameeyay culimadii aan oo isugu yeerna meesha Sheekh Siraaj iyo walaalkeen Luqmaan iyo asxaab badan uu sheegay wuxuu yiri safiir oo Abdusalaam miyaa isla joogtaan ha Abdusalaam min zamana isna qaad wuxuu yiri gabar qurux badan baa siiyay uu igu diiday oo ficlan kuma diidinay hooyaday baa la tashtay sheekhan uu maad umuman aad baan gabadha u jeclaa laakiin ugu dambeyn mis'almatay ما نسأل فواكوسو كوبا أرجع مركو وحو يري عبد السلام أو أرجع بو يري شعب الشيء ما لها وحاكو دعي ميل نفسي أف عربي بمعنى وحا جنجرتي أو نيدا دي قلبي جاجي وراعي قبدا شيخ غرابوهي وحنكو يري شيخي وحان ربا الشيخ أمالنا إنان ويديو أديغنا كويديو ما وحان قاتا قبداد إسيسي مسد تنهويدي محان سميا شعب الرشيد كور مر شيخ أمالنا إساقنا وحان ويدية اسكندنافيانكا نوروي إساقو جوغان بالتوك برنامج كاس ليراد واغاس أدي ملاها وايرد آدي بانكو ويدية نوروي جوغي ولا شيخ لا خير سي شيخ أمال شيخنا الفاضل مركا شعب الرشيد وحو يري تن يعني هويدا با مرول بكو بركه بدن مرول يدا تيدا الهي رحمانك كوما قادينيو توكل على الله شيخ سيداس اسكو مع سلاميني وحان يماده حافديدا لبا ركعه كلان تكدي habeenkii buu baaltooga soo galay sheekh Umal isagoo Norway joogo
yarka barnaamijka daadihinaya baan luuqa u galay allaahuma baarik lana fii luuqina ilaahu luuqyadeenna noo baraka waa weydiiyey waxaan idhi sheekh umal baan weydiiyey sheekh umalow hee mumkin as'alaka xaaga tafadal waxaan idhi hooyaday gabar bay siisay sheekheennana gabar buu maxaan sameeyaa wuxuu yidhi dadkoo dhan fatwadaas way duuban tahay wuxuu yidhi haddii aad guursatid midii aad jeclaatay oo markii hore aad isla hadasheen fabiha khayr wa baraka yacni diinta islaamka ma qabto macnaha inaad hooya aad ku caasisay waa haddaad guursatid middaa aad rabsatay oo qalbigaaga uu raacay bimacnaa meeshan waxaa ku jira in yani aan sheegayno wax la yidhaahdo jacaylka inuu jiro iyo rabitaanka laakiin kan hadda ma aha am talking meeqa sano ka hor kan hadda ma aha runtii waa israaciya aniga waagaas sheekh umal wuxuu yidhi kan hooyadaadana haddii aad gabadhii hooye ay keentay oo aadan arkin oo aadan la haasaawinna qaadataa duca waalid iyadana kaba sii fiican beed idan maxaan qaatay taladii sheekh umal wa ficlan kumana khasaarin ilaahay wuxuu qoray inaan dubaay soo maro hooyo shoobin ii samayso hooyada iyadaa ii guurisay si kale haddaan u dhigo I was 15 years dadkan international community-ga haddayna maqlaan waxay leeyihin 15 years maa u guurinaysaa diinteenna islaamkaa qabto I'm not talking gabadha aniga agekayga 15 iyo 16 ay markaan guursanaya wa ficlan alxamdulilah wiilkayga curadkayga maanta dugsi sare ayuu turkiga ka dhiganaya which means waxa waaye saddex wax bay yidhaahdaan soomaalida wiilkii dhale walaalkii dhale iyo wadkii dhale marka ana walaalkii dhale baan malaha ahay cumuuman waa soo baxay gabadhii xataa ma arkin aan mandheera ugu tagay waxaa la yidhi habeenkii arooskaad is arkaysaan habeenkii arooskan guriga yimaadena 2 rakacan tukaday waxaana ku ducaystay ducaa cajiiba ay wiish dhallinyarada inay ay ka faa'iidaystaan qisadayda oo ah اللهم اختر لي ولا تخير لي بانكو دعي سنجري إلهو اللهم الله يو هي اختر لي أنيجا يعني دور إلهي هتوح قدر أستاذي ميو قدنا يا بالله عليك رب العزة جل جلاله خالق الخلق ومداس أو دن كون كان أحد كأبور ميو قدنا يا أني أديك ما منقانو حالي مدى جوكت لندن يحاول جوكت حمر iyo midda joogta Hargeysa iyo Jigjiga iyo Nairobi we don't know midda khayrka noogu jiro kadalika gabadha Faaraxa jooga London iyo Axmed ka jooga Mareykanka kan Carabaha jooga iyo kan Ethiopia ma kala garanayso midka marka ducadaasan ku ducaysan waxaan xasuustaa habeenkan guursanayay arinta cabsidan ku daraya aan comment garanaya $50 jeebkayga ku jiro gabadhana intay joogtaa Mandera habeenkaas ay hooyo tiri Mareykan iyadoo joogtay ii soo dirtay $50 toddobada iskaga bixi yaa akhi qof miyaa maanta $50 toddobada iskaga bixinay aan gashay jeebka maxaa ii hor yaala habeen jimce ahayd aroos markaan wallahi yani xaqiiqda ilaaha markaan xasuusto waan ilmeeyaa